taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dad loo haysto dilka wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya gaashaanle sare Qaasim Axmed Roble oo kamid ah saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay arrimahaasi iyo arrimo kale oo ku saabsan dhinaca ammaanka. halkan waxaan ka soo jeedinayaa war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku saabsan 3 qodob. ugu horeyn number 1 number 2 ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu bariyahan waday howlgallo ujeedadu ahayd sidii loo dhaqan gelin lahaa baaqi madaxda dalka ee ku aadanaa la dagaalanka musuqmaasuqa waxayna gacanta ku soo dhigeen isla markaana loo gudbiyay xabsiga dhexe dhowr qof oo isugu jira shaqaale dawladeed iyo ciidan kuwaas oo ku hawlanaa qaadista canshuuro sharci darro ah waxaana hadda socota baaristii eedayntii waxaana loo gudbin doonaa maxkamadda awoodda u leh. lambar 2 sidoo kale ciidanka booliiska waxa uu waday bariyahan howlgallo ku aadan sidii looga hortagi lahaa loona joojin lahaa kuwa caadaystay in gaadiid iyo qalabka ciidanka booliiska ay ku wataan iyagoo dhar cad ah shaqana gacanta ku hayn ama loo dirin taas oo keenaysa dayacaad ku aadan qalabkii dawladda. waxaa gacanta lagu soo dhigay sidoo kale dhowr qof oo watay gaadiid hub iyagoo dhar cad qaba gaadiidkaas oo laga dhigay iyagiina baaris ayaa ku socota. lambar 3 xalay abaaro 7 fiidnimo waxaa geeriyooday ex xildhibaan ahna wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud kadib markii ay haleeshay rasaas ay rideen ilaalo la socotay gaari kale waxaana dhacdadaasi loo soo xiray 3 qof oo midkood ahaa kii riday rasaasta keentay geerida wasiirka baaritaankiina waa socdaa natiijadana dib ayaa laga soo sheegi doonaa.